xiisada u dhaxaysa Elon Musk iyo madaxweyne Trump ayaa cirka isku shareertay bishii June ee 2025 kadib markii ay si aas u dhaceen arrimo la xiriira siyaasadda dhaqaalaha xiriirkoodii hore ee siyaasadeed. Asalka khilaafka Elon Musk ayaa ahaa taageero weyn oo maalgeliyay ololaha doorashada Trump ee 2024 isagoo ku bixiyay in ka badan 290 milyan kadib guushii Trump. Musk waxaa loo magacaabay madaxa hay'adda cusub ee Department of Government Efficiency taas uu Trump u abuuray si loo yareeyo qarashaadka dowladda. Musk wuxuu bilaabay inuu shaqada ka eriyo kumanaan shaqaale dowladeed taasoo keentay dhaleecayn ballaaran. Si kastaba ha ahaatee xiriirka labadan ayaa xumaaday kadib markii Musk uu si adag u dhaleeceeyay hindise sharciyeedka cusub ee Trump ee loo yaqaan One Big Beautiful Bill Act isagoo ku tilmaamay mid buuxinaya miisaaniyadda qaranka oo aan la tixgelin mas'uuliyadda maaliyadeed. Musk wuxuu sidoo kale soo jeediyay in la sameeyo xisbi siyaasadeed cusub oo la yiraahdo American Party. Trump ayaa si kulul ugu jawaabay dhaleecaynta Musk isagoo ku hanjabay inuu dib u eegi doono heshiisyada dowladda ee la leh shirkadda Musk sida Tesla iyo SpaceX. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu tixgelinayo suurtagalnimada musaafiriinta Musk inkastoo Musk uu yahay muwaadin Mareykan ah tan iyo 2002. Saameynta dhaqaale khilaafka ayaa saameyn weyn ku yeeshay suuqa maaliyadeed iyadoo saamiyada Tesla hoos u dhaceen in ka badan 6% taasoo keentay in Musk uu waayo balaayiin dollar oo hanti ah. Sidoo kale khilaafka ayaa saameeyay qorshaha maalgelinta ee shirkadda AI ee Musk. Isbeddelka Musk bishii June 10keedii Musk ayaa raaligelin ka bixiyay qoraaladii horey ugu dhaleeceeyay Trump isagoo sheegay inuu qaar ka mid ah ay aad u dheeraayeen. Si kastaba ha ahaatee khilaafka ayaa weli saameyn ku leh xiriirka labada nin iyo siyaasadda guud ee dalka. Khilaafka u dhaxeeya Musk iyo madaxweyne Trump wuxuu muujinayaa sida xiriirka u dhaxeeya ganacsatada iyo madaxda sare uu noqon karo mid jilicsan oo saameyn weyn ku leh dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka. Elon Musk waxa uu sheegay in haddii hindise sharciyeedka qarashaadka waalan uu ansaxo in isla maanta la aasaasi doono American Party, xisbi cusub oo siyaasadeed. Wuxuuna intaas ku daray inuu dalku u baahan yahay isbeddel dhab ah oo ka baxsan labada xisbi ee waaweyn Democrat iyo Republican si shacabka run ahaantii cod u yeeshaan. Tani waa tallaabo weyn oo muujinaysa in Musk uu si dhab ah ugu fikirayo gelitaanka siyaasadda kana hor imaanayo nidaamka labada xisbi ee hadda jirta. Waxaa sidoo kale dhabarjab cad ah oo la xiriira khilaafkiisa sii xoogaysanaya ee uu la leeyahay madaxweyne Trump. Musk wuxuu si rasmi ah u sheegay inuu taageerayo Thomas Massie si uu uga hortago madaxweyne Trump tartanka doorashada xisbiga Primary Challenge. Musk wuxuu hadda si buuxda ugu hor yimid Trump isagoo taageeraya siyaasi kale oo lagu magacaabo Thomas oo u muuqda inuu doonayo inuu Trump kaga adkaado gudaha xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga la sameynayo. Tani waxay muujinaysaa in khilaafkooda uu gaaray heer uu Musk diyaar u yahay inuu taageero qof kale oo meesha ka saara Trump. Waxayna sidoo kale cadeynaysaa inuu Musk uusan taageero u ahayn Trump mar dambe. Wuxuu ku dadaalayaa inuu siyaasadda Mareykanka saameyn xoog leh la yeesho. Madaxweyne Trump oo si toos ah u weeraray tiknoolajiyadda gawaarida korontada gaar ahaan kuwa ay samayso Tesla ee Elon Musk. Trump wuxuu yiri baabuur koronto ah dhib kaliya ee uu leeyahay waa inuu qarxo. Trump wuxuu hoos dhigayaa ama uu ceebeeyaa baabuurta korontada isagoo ku tilmaamayo kuwa khatar ah oo qarxo. Tani weerar cad oo ka dhan ah Tesla shirkadda Elon Musk taasoo astaan u ah xiisada sii kordhaysa ee u dhaxaysa labadaba. Waa la dareemayaa inuu khilaafkooda uu gaaray heer shakhsi ah iyo heer ganacsi.